بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء شرفت له مرتدى إنه وأن كبر الله شيخنا إمامكنا شيخ عبد الله عبد إبراهيم إيوه علماء كله ضيوفنا الكرام كأه دنجرها دلك الصومالية وفردية وطن كان سود أفريقيا والدينتا حرمة مدن إيوه مرت شرف كله قبلها هويوين كأه إيوه أرضيدا قبلية ويلبه دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدب waxaan halkan u fadhinaa maanta walaalayaal saad ka warqabtiin dhammaantiin aad wada ogtihiin qalin jabin xaflad loo qabanayo ardayda ka qalin jabisay madrasatu sunnah oo ah dufcadii shanaad saad arkaysiinba waa kuwaas ardaydii qalin jabisay waa kuwa hortiina maraya tiradoodu sanadkan ardayda qalin jabisay waa 24 arday sanadyadii hore tiro aad iyo aad uga badan weeyaan marto ay 5 ahaayeen mar ay 7 ahaayeen iyo mar ay ka sii yaraayeen iyo hadda oo yihiin 24 arday oo intooda badan da'doodu ay aad u yartahay waliba 8 jir baa ku jira oo ugu yar ilaa iyo inta u dhaxayso 12 12 meelahaas ay u badan yihiin waxaan u yeedhayaa hadda rumaan saalax nuur oo kelima oo aayad min dikri illaahi alxakiim inoo akhriyaysa biidn illaah tafadali rumaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون جزاك الله خيرا
rumaan saalax nuur ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo aayaadka inoo akhriday kadib qodobka labaad wuxuu inoo noqon doonaa insha allahu tacaala sheekh cabdullaahi oo soo dhoweyn doona culimada iyo bulshadaba guud ahaan الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله تلقى القرآن من لدن حكيم عليم صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الدين وبعد ما أنت أيتهي تاريخ دا إسلامكم لحيا اللباتنكي بشي اللبات kun iyo 455 26 bishii labaad ee safar 1435 oo laga joogo taariikhdii hijriga nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday magaalada Makka Madiina uu u hijrooday taariikhdaas oo hijrada laga joogo inta ay tahay oo ku aadan 29 bishii 12aad 2013 waxaan meeshan u fadhinaa inaan ka qayb galno xaflad loo dhigayo ardada quraanka dhamaysay oo ka qalin jabisay madrasatu sunnah oo kamida madaarista albayaan majlisul bayaan maamula kamida xafladda aan ka qayb galayna maanta aan tilmaanay waa mid sanad kasta aan sameeyno oo caadada inoo ah xilligan oo kale ardada quraanka dhamaysay inaan u qabanno culimada martida inoo ana la wadaagaan sanad walba markay inoo yimaadaan xilligan oo kale taas oo lagu soo bandhigo ardada quraanka dhamaysay shahaadooyinkana lagu guddoonsiyo lagu siiyo waxyaabo kale oo madrasada ku saabsan lagu soo bandhigo iyo ardadeeda arrinta iyada ah waa arrin mudan in lagu farxo oo ah fadli ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo tawfiiqdiisa weey qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un had ku tiraahdaa dadka ha ku farxeen raxmadda ilaahi diintu waa raxmad ilaahi islaamku waa raxmad ilaahi midnimadan iyo wanaaggan waa raxmad ilaahi subhanahu wa ta'ala waana fadli ilaahi raxmadda iyo fadliga ilaahi ha lagu farxo faraxaas oo ah mid ilaahi loogu shukriyo subhanahu wa ta'ala jazaahu allahu khayra aljazaa sheekhana sheekh cabdullah si toosa waxaan ugu gudbayaa qodobka saddexaad oo ah kelimadii golaha dacwada ama hay'adda culimada ee wadankan khaasatan gobolkan sheekh محمد أدر فليتفضل فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونسوكو بيا رنتي وحفرحد وين نوعه ولله سبحانه عز وجل وقم هذينينا إن نكسو قيب قال لي ما أنت وهلكو فردنه حفلد عدد بدن oo kamida ardada madrasada sunna ay ku dhameeyeen quraanka kariimka oo ogtihiin quraanku inuu yahay wax la barto waxa ugu fadliga badan waxa runtii farxad gaar ah si ah dadka quraanka dhameeyay in qaar kamid ay yihiin kuwii ku dhashay dalkan waxa farxad ah annaga ku nool dal qurba ah oo dadka daga intooda badan aanay muslim ahayn oo muslimiinta joogta ay ka yar tahay 200kiiba in haddana aan quraanka ku baranayno taasoo ku tusayso ummadani inay tahay ummad ilaahay subhanahu wa azza wa jalla jeclaysiiyay quraanka una sahlay quraankiina uu la soo qaxay
dadkii qur'aanka xambaarsanaa ay la soo qaxeen culimmadii aad arkaysaan qaaradaha kala duwan ee adduunka jiray ay la daba socdaan diinta iyo wacyigelinta iyo baraarujinta midhaha dacwada halkan ka abuuran ee aan u dabaaldegayna maanta waa natiijo ka dhalatay dadaalkii iyo juhdigii dheeraa ee culimmada soomaaliyeed ee in badanoo ka midii maanta aynala joogto ay bixiyeen taasoo dabaysha fitnadu markii ay qaaday midhaheeda ay ku abuurtay beerta marka la gooyo oo midhaha laga goosto dabayle hadday qaaddo abuurka meelo aan beer laga abuuranin ayay ka soo baxdaa oo roobka ku da'aa sidaa darteed tani waa mid ka mid ah midhihii dabayshu soo qaaday ee dadkii qur-aanka xambaarsanaa oo yimid dhulkan waxyaalaha cajiibka ah runtii waxaa ka mid ahaa iyo sida ummaddan ay qur-aanka u jeceshahay marar horena waan tilmaamay waxaad arkaysaa gobollada soomaaliyeed qaar ka mid ah yaa caan ku ah qur'aanka oo dadka degaa ay ka badan yihiin yacni dhinaca xifdinta dadkooda qur-aanka xifdisan dadka kale ay ka badan yihiin waxaa ka mid ah gobolka baaya bakool oo kale oo aniga waxbarashadaydii iskuulka hoose qaybo ka mid a aan ku soo qaatay yacni dadkaasi sidii tafsiirka iyo wax badan lagama garanayo laakiin qur'aanka sida loo daneeyo loo xiiseeyo xataa marka beeraha la tabcanayo meesha mitir iyo waxyaabo kale halbeeg kale lagu cabirto qur-aankaa lagu cabiran jiray waxaa la dhihi jiray aniga beertaydu waa 2 yaasiin oo dharara iyo 1 tabaarag oo gudub ah soo ma garanaysid yacni qur-aankiibaa xataa halbeeg u ahoo noloshoodii kale dhex galay siday u jecel yihiin iyo siday u xifdinayaan iyo siday ugu dadaalayaan taasina waa mid ummaddan ay caan ku tahay ummadaha kalena ay kaga socan tahay jacaylka qur-aanka iyo ilaahay inuu u sahlay xifdiga arrintaasi waxaan mahadaan la soo koobi karin ugu celinaynaa allah subxaanahu caza wajal haaniyan waxaan ugu mahad celinaynaa macallimiinta juhdiga faraha badan ku bixiyey sidoo kale macallinku ma soo saari karo keligii ama way ku adag tahay inuu ka midha dhaliyo juhdi soo saara dad xambaarsan qur'aanka oo siday tahay u yaqaana haddaanu caawimaad iyo kaalmo ka helin waalidka haddaanu kaalmo ka helin bulshada middaasina waa midda iscaawinta iyo iskaalmaysigaasi uu soo saaro sabab u noqday arrinka noocanihi inuu soo baxo intaasaan kusoo khatimaya jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan joognaa qodobkii afraad macalin maxamed cali cabdi nasrudiin waa macalin ka mid ah macallimiinta madrasat sunna الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولليال إن شاء الله تعالى أولا وآخرا الله مهد إسكاله نقول كل مياي beydkiis ka mid ah annagoo maaragtay ka qayb gelayno xaflad qaali ah oo dad qur'aanka xabaarsan loo dhigayo marka waxaan u mahad celinayaa culamaauddiinka martida noo ah sharafta badan ee halkan nagala qayb gelayso xafladda qaaliga ah waxaan mahad u celinayaa culammada dalka sii joogtay dacwada golaha dacwada albayaan waalidiinta qaaliga ah ee soo saaray ubadka diinta xambaaray hadda martida qaaliga ah ee ka soo qayb gashay dhammaan ardayda qaarna dhameeyey qaarna hadda waddadii hayo intaa kadib in sha allahu tacaala waxaan gudagalayaa taariikhdii oo kooban madrasatu sunna maadaama lii xil saaray madrasatu sunna waa madarasa islaami ah oo ay leeyihiin soomaalida ku nool koonfur africa gaar ahaan magaalada cape town madarasatu sunna waxay hoos tagtaa golaha dacwada albayaan oo ay hoos tagaan 16 madaraso madarasatu sunna marxalado kala duwan oo ay soo martay kadib waxay hana qaaday sanadkii 2006kii madarasatu sunna waxaa lagu bartaa qur'aanka kariimka iyo culumta kala islaamka waxaa madarasada xoogga lagu saaraa farbarka carab saxidda iyo intay soo dhaafeen oo ay xifdiyaan waxaa madarasada ka howlgala 10 macallin ilaa 10 macallin tirada ardayda dhigato waa wax ka barato waxay gaarayaan 300 iyo in ka badan
suweyda macallim xasan ood wada taqaanaan ayaan hadda u yeedhayaa si ay nagu soo jeediso kelimo tarxiib ah oo dhanka ardayda ah. dhankii macallimiinta waa laga yidhi, dhankii culimmada iyo amiirka dacwada iyo golihii dacwadaba waa laga yidhi. haddana waa dhankii ardada suweydo ku soo dhawow. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على أن من علينا بهذه الفرصة الغالية المباركة التي نسعد فيها بلقاء العلماء المخلصين الدعاة أصحاب الفضيلة والشرف حفظهم الله تعالى وأطال عمرهم مع الصحة والعافية. ضيوفنا العلماء مدرسة السنة ترحبكم اليوم بكل معاني الكلمة في حلل البهجة والسرور، لأنها تقر عينا بالترحيب بشخصيتكم الكريمة. ضيوفنا الكرام أيها العلماء الأجلاء، إن هذه المدرسة مدرسة السنة والتي نستقبلكم في رحابها كانت تجربة ناجحة فريدة في الحفاظ على الهوية الإسلامية في هذا البلد غير المسلم مرة ثانية. فمرحبا بكم بين طلابكم، مرحبا وبكل لون حللتم، أهلا ونزلتم سهلا، فلكم أرق وأعذر التحايا وأصدقها. مرحبا بكم مع كل شروق شمس وغروبها، مرحبا عدد نجوم السماء اللامعة في الأفق، مرحبا عدد سقوط قطرات الندى على الزهر. كل شيء يرحبكم، كل شيء يبتسم ويبتهج فرحا بقدومكم، كل شيء ينتظر مشاركاتكم، كل شيء يردد حياكم الله علماءنا الأفاضل. مرحبا بحفلة أقيمت لأولئك الشرفاء حملة وحفظة كتاب الله عز وجل تشريفا وتكريما لهم. وختاما أقول لكم ضبتم وضاب ممشاكم وجعل الجنة مثواكم. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. سويد معلم حسن، إله سبحانه وتعالى خير هسيو. هذا وشيكو قابن oo ay saddex arday inoo jilayaan oo kala ah san horey u soo sheegay cabdinaasir cuthmaan, liibaan daawuud, cabaas cabdi cumar. dulucdeeda iyo ujeeddadeedana saan horey u sheegay baan haddana ku celinayaa, idinkaa laydinka sugayaa insha allahu tacaala. sheekh ka waran ninkan hurda haddaan kabaa ka qarino si aan u fiirino falcelintiisa. maya ka qari mayna kabaha, waayo waa dimindaabiyo, ma fiicna dadka insaan loola dhaqma. laakiin adigu reer ladan baad ka dhalatay, lacag baad haysataa, bal kabaha lacag uga buuxino, fiirinoonaa falcelintiisa. wariileentan oo kale. alxamdulilaah alla waa lacag maasha allah. maxaa u baahnaa wakhtigan? daa'inkiina uumayow, deeq badanihiyow, inta waa dillaacee, ama uu habeen dumo, ama ow digriyiya uu xuskaaga daa'imo, ama qaafil dayrsane ka fogaada dayrkaa baan mahad kugu daldalayaa. daa'inkiina uumayow, dad iyo duunyaba khalqiga arsaaqda adaa dabara, dushaada adaa ku qoray, waxay u takaamayaan haddana dow adaa ka dhigay. dadaal inay muujiyaan daa'inkiina uumayow, waxaan maanta daalanaa, waxaan darxumii dhib qabay, waxaan warwar la ildaraa, dambiishii iga marnayd i waxii dayn igu qoraa, naftii igu dabayareed daqiiqad adaa bedelay, waxaan diihaal qabana dabeesha adaa ku daray. waxaa lacag duubane barbaarka dusheeda dhigay, wuxuu dooniba ku sii diggeedana door ka sii, wixii dad bukana dawwee
cidii dayacanna daryeel muslimkana dembigiis dhaaf ifkana khayr nagu duurduur aakhirana janno nagu deeq sheekhow darsi fiicanoo naftaydii dooriyo dareenkaygii kacshaa horteyda ka daahiree maxaan dhammanaan ku jiray intaa dad aqinyaraa mulaca caruurtu dili ee ciyaarta ka doonayaan dilbay isagana ku tahay duruufaha aadanuhu maxay kala duwan yihiin miskiinka kebihii dulyil haddaan ka dulqaadi lahaa soo habaar ima daba dhigeen dusheedana lama heleen haddeerna ducaan ka helay allana mahad buu u diray dadkaoo dhanna khayr la doon intaa dabadeed rabbow inaan dibindaabyo iyo dulmiga ka fogaado iyo nin daacadi igu ogo oo wanaagga duciisa jira qaybintii shahaadooyinka iyo jawaa'ista insha allahu tacaala asaga ayaan gudagelaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ardayga koobaad ee ugu hordhameeyey ee aan u yeedhayo ee shahaadadiisa la guddoonsiin doono waxaa weeyaan ismaaciil axmed cabdi tafadal haa qunsulka ayaa ku wareejinaya ee aan u yeedhayo ee shahaadadiisa la guddoonsiin doono waxaa weeyaan cabdiraxmaan nuur cabdisalaam ardayga saddexaad waa gabadh zuhuur cabdirashiid sheekh madeera ku wareejinaya waxaa ku xigsaday zuhuur walaalkeed sacad cabdirashiid doctor cabdiweli ardayga ku xiga waxaa weeyaan cabdililaah asad xaydar oo annagu aan u naqaano taalud xaydar ardayga kale een u yeedhayo ee shahaadadiisiiyo jaayisiisa la guddoonsiinaya waxaa weeyaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ku magac dheer cabdiraxmaan suufi tafadal sheekh maxamed gabdhihii baa soo laabtay iminkana waa sundus cabdirasaaq gumbe in badan buu magaca idinku soo noqon doonayaa dhagtiisii haddana waa ruwaydo nuur cabdisalaam
waxaa ku xiga cabdirasaaq faarax cabdullaahi waxaa ku xiga oon u yeedhayaa cabdiraxmaan mahad cabdullaahi sheekh shaakir ayaan weydiisanayaa inuu soo istaago si uu guddoonsiiyo iminkana waa gabadh da-yar oo 8 sano jirta oo la yidhaahdo hilaal nuur cabdullaahi sheekh maxamuud ayaan weydiisanaya inuu soo istaago si uu shahaadada u guddoonsiiyo najmo cali nuur ayaan u yeedhayaa haddana si ay shahaadadii ijaasadeeda u qaadato ku soo dhowow najmo haddana kaalintan waxaa iska leh khaalid cumar xasan sheekh maxamed ul baan weydiisanayaa inuu shahaadada guddoonsiiyo haddana dhanka gabdhaha aan u yar laabtee waxaa iskale kaalintan gabadha la yidhaahdo asmaa macallim xasan asmaa macallim xasan soo istaag haddana waa ninkii ugu cuslaa waad garanaysaan soo ma waa kuma cabdicasiis cabdicasiis cali gaafow tafadal sheekh cali ninkii ugu cuslaa wey الله أكبر waan idiin sheegay inuu nin culus yahay runtii haddana waa cabdullaahi beder xaashi sheekh cabdiraxiim shahaadada jeeda haddana waa maxamed axmed cabdi doctor cabdiweli haddana waa luqmaan cabdirasaaq gumbe waa idin sheegay in idinku soo laalaabanaya oon anu u aqaano sayid luqmaan doctor aadan haddana waa hoodo xuseen cabdi waxaan weydiisanayaa sheekh axmed dheere inuu soo istaago shahaadada si uu siiyo
waqtigiisii la gaadhay cabdiraxmaan cabdirasaaq gumbe waa kii saddexaad ree cabdirasaaq gumbe qunsulka ayaan weydiisanaya inuu shahaadadaasi isla qabto shahaadada saa wada qabtaa waxaa hadda waqtigiisii la gaadhay maxamed cabdiraxmaan maxamuud waa ardada ugu da'yar ee qur-aanka dhammaystay ugu yaryar weeyaan qunsulkaan ugu celinayaa maxamed cali mire waxaa ku xiga saaxiibkiis cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi waa ninka ugu sii da'yar sheekh cabdirashiid tafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. haddana waxaan u yeedhayaa ibraahim xaydara waa ugu dambayntii waxaa siinaya sheekh maxamed umal khaalid cumar xasan waa afhayeenka ardayda qalin jebisay kusoo dhawow khaalid بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم علماء معلمين والدين أرضي إكسوق بجلياشة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أنا كهدلا يا مع أرضي دا قرآن كدميسي وحان مهد إدلك تعلن يا الله سبحانه وتعالى الله نو دورتي الله نو دورتي دين تكلية حقه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وحان كحجنا يا والد كيو سدو إيبا ودبدي شكر جيسا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وحان أمهد علينا يا معلمين تيدا قالقا كوا صومرنا والد كيو دنك تربية مرنا صاحبة يا دنك كالسوني دا مرنا معلمين تيا وحان إذن لا هاي أمان إيا درجو ادقوني با إذن دميي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحان إيانا أمهد علينا يا هيئة علماء الدين كصوماليات كونفور أفريقيا البيان ورنتي أود بدن جلسي سيدي أي ورنتي أود بدن جلسي سيدي أي صوماليدا يا مسلمين تبع وجا حق بتري لهيد
oo adeega dhinaca diinta gaar ahaan ay u najixi lahayd madrasatu sunna. sidoo kale culimadanada sharafta leh oo safar dheer u soo galay amaba wadanka gudihiisa u galeen baxay sidii ay u yagleeli lahaayeen maraakistan qiimaha badan. dhammaantiin waxaan idin leeyahay waxaad haysaan waa shaqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, alculamaa warathatu alambiyaa. waxaan ugu dambeyntii u mahad celinayaa dhammaan dadka kasoo qaybgala xafladda iyo cid kastoo khayrka garab u ah dhammaantood. aad baan u faraxsanahay, dareenkayaga ma wada cabiri karo ee waxaan idin leeyahay macallimiin, waalidiin, ducaad iyo mashaa'ikhba, shahaadooyinkani waxay markhaati ka yihiin inaad waajibkiina gudateen. bilxaqiiqa waad gudateen oo waadna soo gaarsiiseen daxalkii rasuulka calayhi salaatu wassalaam, waana idinka gudoonay. waxaana ballan qaadaynaa inaan anaguna jiilka dambe gaarsiino insha allah. waxaan ku soo koobaynaa codsi, waxaan ka codsanaynaa culimada iyo ammaan iyo dhammaan dadka kasoo qaybgala xafladda inaad noo ducaysaan. nas'alu allah atawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyihi wa aalihi ajmaciin. ما شاء الله جزاه الله خيرا. خالد علي قافو وأفهيينك أسونا والدينتا أسونا إيان هذا كلمة سينا يا علي قافو تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta mahad ilaah baa iskale. mahad dhammaanteed iyo sharaf dhammaanteed waxay u sugnaatay ilaahay. marka waalidiinta waad arkaysaan waxa meesha ka dhacaya, sadar muuqda su'aal ka dhan baa la yidhi. hadday wax ka boodboodaan ayaan loo qaadan in maaragtay waxa weeye waa la faraxsan yahay maanta, waa yoomul farax maadaama aan ku hadlayo magacii waalidiinta. waxaan ammaan u soo jeedinaynaa culummada runtii dalalka dheer ka timid ee kala fogfog. runtii mar iyo laba iyo saddexna aan ahayn markay noo imaadeen, in badanna soo gaarsiiyey diinta. waxyaalahan hadda aynu maaragtay u fadhinno iyo horumarkan aan gaarnana nambarka koowaad kaga jira. horta mahad weyn baan u celinaynaa insha allah. waxaa kaloon ammaanaynaa oo si sharaf leh haddaanu nahay waalidiinta macallimiintanaga oo haddii ilaahay ku roon yahay har iyo habeen ardadana aad arkaysaan ee saa wax u baratay. maalin kaliya wax lama baran, habeenkana wax waa la baraay. juhdi badan baa la geliyey. juhdigaasna waxaa geliyey waa macallimiinta, waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed oo u guntatay wax walba oo diinta islaamka lagu baranaayo inay suuro geliyaan. marka insha allahu wax badan oran maayo, waqti waa iska gaaban yahay. macallimiinta iyo culummada, marti sharafta, haweenka, ardayda kale aan quraanka dhammayn iyo kuwa hadda mataqaanaa raba inay maaragtay madrasada tagaan, intaba waan u mahadcelinaynaa. waxaan u mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed ee Western Cape degan ee runtii u heelan inay diinta islaamka iyo samata bixinta ummadda ay ku dadaalaan. ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan aad arkaysaan iyo dhismahan aad arkaysaan iyo qaabkan aad arkaysaan markii hore dadkii Belfil joogi jiray iyo sidii ay ahaan jirtay iyo sidii ay maanta tahay wax badan bay kala duwan yihiin. culummada qaarna mar hore inoo imaadeen, qaarna hadda inagu cusub yihiin baan filayaa. sanad walba sanadka ka dambeeya qaab dhismeedka iyo qaabka sidan wax u qabanayno waa ka si fiican tahay. macallimiintu waxay noo sheegeen 22 arday hadda inay qalin jibiyeen. waa sanadkii ugu wanaagsaneed ayaa la dhihi karaa intina soo martay. laakiin waxaan rajaynaynaa sanadada dambe inay tan ka fiicnaan doonaan insha allah. marka insha allah waalidiintii ardada quraanka dhamaysay haddaanu nahay waxaanu ku talagalnay jaa'isooyin gaar ah oon siin doono macallimiinta madrasatul sunna. jaa'isooyinkaas la sheegi maayo waxa ay yihiin, waa wax annaga noo qarsoon. kolley macallinkii la siiyey markuu baaro asaga arki doono waxa ka soo baxa. insha allahu biidnillahi alkariim waxaa ina farax geliyey dhammaanteenna ummadda Soomaaliyeed oo dhan farax gelin doona
إن شاء الله سيدان وحبو قبنينو iyo sidaan aan wax yeelayno bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u yeerayaa markaan Cabdiraxmaan Suufi Cabdiraxmaan Suufi wuxuu guddoonsiin doonaa Macallin Maxamed Nasruddin waa box iyo baqshad isku xiran weey baqshadu boxka way ka koraysaa waa kala gooni waa laba box bay kala yihiin laakiin waan isku maartay waa isku xirnay ما يو سكرت واي يا العق باكو جرت العق والعق وي لكن بوكس واحد كلا كسي جرى نمبر كلمات أنا ويراي waxa weeye waxa weeye Cabdi Casiis Ali Gaafow wuxuu guddoonsiinayaa Cabdiraxmaan Seero haddana waxaan u yeerayaa ardayga kale Daahir Siyaad Daahir wuxuu guddoonsiinayaa Macallin Ibraahim ma nambaradaas uu ka xigano Macallin Ibraahim haddana waxaan u yeerayaa ardayga ah Cabdiraasiq Sheekh Cabdullaahi Ubax okay wuxuu guddoonsiinayaa Sheekh Maxamuud Adar haddana waxaan u yeerayaa Cabdullaahi Beder wuxuu guddoonsiinayaa Macallin Mukhtaar magaca si diyaarsada haddana waxaan u yeerayaa ardayga lixaad waa Cabdiraxmaan Gumbi wuxuu guddoonsiinayaa sheekheena imaamkeena Sheekh Cabdullaahi haddana waxaan u yeerayaa ardayga kale ee toddobaad Ismaaciil Axmed wuxuu guddoonsiinayaa Sheekh Cabdirashiid Colaad haddana waxaan u yeerayaa ardayga sideedaad Cabdiraxmaan Nuur wuxuu guddoonsiinayaa Macallin Maxamed Muxsin haddana waxaan u yeerayaa ardayga sagaalaad Daluud Xaydar wuxuu guddoonsiinayaa Sheekh Siciid haddana waa qaybtii gabdhaha waxaan u yeerayaa Hoodo Xuseen Cabdi waxay guddoonsiinaysaa Faadumo Sheekh Nuur waa loo sii qaadaa hal yar iska fadhido ayada u sii geynaysa insha Allah ay soo kicin waxba ardayga 11aad waa kii ugu dambeeyay waa Najmo Cali Nuur waxay guddoonsiinaysaa Hindo Cabdiweli insha Allah haweenka aan sheegayno waa macallimiinta kamid yihiin ogaada maahan arday maahan halkaa waxaa noogu dhammaaday jaa-isooyinkii ay ku tala galeen waalidiinta
ilmaha qur-aanka dhammeeyey ee madrasatul sunna sanadkan marka aad baan ugu daahanaan malaynayaa mahad ballaaran ilaahay baan u soo jeedinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha culummada sharafta leh ee martida inoo ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay soo dhowaada madrasadu waa madrasadiinni dadkuna waa dadkiinni waa waxa meesha lagu joogana waa magaciinni haddii ilaahay kuu roon yahay wixii aad qabateen mirahoodii weeye maanta waxa halkaa lagu hayo sidaa iyo shaqo wacan sidaa iyo dadaal wacan diinta aan si fiican uga wada shaqayna ayaan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay xaaji cali gaafow jazaahu allahu khayran haddana qodobkii tobnaad baan maraynaa gebagabaan joognaaba wax kalena waa inoo soo socdaayo waxaa jira wixii xaflad lagu yaqaanay xalwad iyo buskut iyo cabitaan wixii xaflad lagu yaqaanay waa inoo diyaarsan yahay meeshaas ah bay gabdho ku diyaariyeen maanta dhan wayna sugayaan ha ka tegina waxaa kaloo labaadan codsan lahaa wakhtigan markii la gaadho xoogaa hadal baa iska jira hadal baad bilowdaan hadalka yareeya min fadlikum wa ixsaanikum hadda waxaa la gaadhay wakhtigii marti sharafta aan ixtiraamna martida hadalka ha la yareeyo min fadlikum wa ixsaanikum haddana waxaan si toosa ugu soo dhowaynayaa mas-uulka soomaaliyeed oo ah danjiraha ama siihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka south africa safiir maxamed cali mire falyatafadal soo istaag bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan marka hore aan u mahadnaqayaa waxaan marka hore codsanayaa dhallinyarada yaryarkaa horta inay aamusaan okay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan waalidiinta ka soo shaqeeyey inay dhallinyaradaas 24-ka ay gaaraan meesha ay gaareen idinka oo waajibkiina tahay haddana waa ku mahadsantihiin waa dan guud waa mas-uuliyad shakhsiyadeed waa hawl kuu taale ood ka soo baxday waa waajibaad diiniya waana qayb ka mida jiritaanka ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin hadda wax fiican baa samayseen idinkoo qurba jooga oo weliba qaxootiya oo nolol feeri tafa ku nool inaad capacity u yeelateen inaad carruurtiina heerkaas gaarsiisaan waa it's wonderful waa idinkaga mahadnaqayaa waxaan si gooni ugu sii mahadnaqayaa hooyooyinka oo ah the majority marka ciyaalka laga reebo hadda majority ah oo keenay inay ciyaalkan halkan gaaraan intaas kadib waxaan rabaa wadaadada inaan laba kalmadood yiraahdo aad bay ugu mahadsan yihiin inay soo saareen dadkan waa muhiim weey aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhallinyarada qalin jabisay waa idinkaga mahadnaqayaa you challenge me anu quraan ma dhamayn waa fursada haysataan laakiin haddaad bartaas uga tagtaan waxba kugu tari maayo waa inaad barataa macaanidiisa tafsiirkiisa dhinacyada kala gedisan oo just one angle-na wax ka fiirin angalada kala gedisan ee nolosha si aadan isgoys u istaagin oo qalqal kuugu dhicin iyo wixii kale oo ku heeraarsan oo muhiim u ah inaad asagaa sii xafido maanta waa barateen xaafidiin baatiin xuju idinku yahay inuusan idinka lumin aad iyo aad baa u mahadsantihiin masjid sunna waxaan kula talinayaa wiilkii yaraa oo afayeenka laga dhigay maasha allah haddii aad u soo qorteen wixii uu noo sheegay uu akhriyana maskax buu leeyahay ka faa'iidaysta hadday his own product ahaydna 10 sano soo socota ninkaasu mustaqbal buu leeyahay masaajidkan waa inuu la wareegaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaahu allahu khayran danjire maxamed cali mire haddana waxaan siinayaa 3 daqiiqo bas maadaama uu reebi uu yahay 3 daqiiqo bas aan siinaynaa sheekh shaakir tafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين marka uu raysay Cape Town baan ahay waana ahaan jiray reebi waana ahay hadda qudhigeeda laakiin raggii Cape Town bilaabay baan kamid ahaa reer Cape Town baan kamid ahay waxaan rabaa inaan muddada 3 minutes ka aan ku soo koobo ee laysiiyay waddankan waxaan soo galnay 1997
waaga aan soo gelaynay masaajid ma jirin madaaris ma jirin ciyaalkan uma noolayn intooda badan ma garanaysaa tartan ma jirin waxaan ku tukan jiray ku weysaysan jiray public toiletka aad garanaysaana meeshan waxaana ku tukan jiray meesha taxi ranka sometime waayadii dambe sheekh cabdullaahi ubax dukaankiisaan ku tukan jiray macnaha waxaan oo dhan ma jirin alxamdulilah ilahi baa mahad iskale maanta madaaris baa jira masaajid baa jira ciyaal baa jira tartan baa jira waa guul wey waxaan rabaa inaan ku darsado idla mushaarakeeyo walaalayaal ciyaalkeennu qur-aanka way baranayaan insha allah adduunkuna waa isbedelay oo sidii waagii 97 iyo 98 ma aha soomaalida waa soo badanaysaa ciyaalkuna waa badanayaan insha allahu waxbarashaduna waa badanaysaa waxaan rabaa inaan qodobka aan usoo istaagay ka mid ah ciyaalkeenna waxaan u diraa iskuulka aan u dirayno waa caqabadda koobaad ee ilmaheenna iskuulka ma diidani waana ka jawaabi doonaa laakiin caqabadda ugu daran ee ilmaha hakinaysa diintiisa ka baabi'inaysa laga yaabo qur-aankii inuusan baranin waa bay-ada aan ku noolahay ee ma garanaysaa gaalada aynu nimid waa iskuulaadkan xukuumiyaadka ee carruurteenna aan u dirayno idan ilmaheennu say qur-aanka u muthmiriin u noqdaan u mardhaliyaan lagu guulaysto waxaan soo jeedin lahaa waa inaa waalidku ay ka fikiraan siday u heli lahaayeen islamic school ma aha macallimiinta ma aha albayaan ma aha waxay ku xidhan tahay waalidka ilmahaaga haddaad ka fikirto ood iskuulka dhibka ka jira aad og tahay aad u dirayso waxa la baraya aad dareemayso akhlaaqda uu kala soo noqonayo kala soo caraabaya aad dareensan tahay ilmahaaga meeshaad gelin lahayd waad ka fikiraysaa waxaan leeyahay marka waalidku iyo duqeyda ilmaha dhalay iyo hooyooyinku xisaabta ha ku darsadaan inay samaystaan islamic school taasoo diintiina lagu baranayo maadigii iyo xisaabaadkii iyo sayniskii iyo wixii loo baahnaana lagu baranayo ilmahaagana ku xakamayn karta ood ogaan karto meesha ilmahaagu diintiisu ay maalin kasta marayso waxaan leeyahay tallaabada idin hadhay haddii ilaahay masaajid iyo macallimiin 11 iyo ma garanaysaa tartan iyo culimo inoo timid inoo dhammaystiray waxaa idin hadhay waa islamic school xisaabta ku darsada wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wiilasha hore soo istaaga intay ardadu soo socdaan majlisul bayaan ama golaha culimada isagoo ku faraxsan waxyaabaha wanaagsan ee ka dhacaya saaka meeshan wuxuu rabaa inuu hambalyo iyo bogaadin u soo gudbiyo kow golaha dacwada albayaan ee gobolka Western Cape waalidiinta macallimiinta bulshooyinka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay maaragtay mar walba ugu taagan yihiin shaqadii gabdhuhu hore soo maran gabdhaha inta imaadeen run ahaantii xalay war aan maqlay aad baan ugu farxay odayaashii magaalada iska daba mareen adeer Ibrahim Sheekh Cabdullaahi Ubax iyo raggii kale ee markaa hadlayba oo ah gobolka Western Cape khaasatan Bellville iyo agaarkeedu inuu yahay mid oo ay mar walbana u taagan yihiin inay midaysan yihiin haddii aanan sahwiyin saa waan maqlay marka insha Allah taala taa in laga dhabeeyo waa wax meesha ku jirto muhiim ah goluhu marka wuxuu go'aansaday sanadkii hore 2 meelood in laga sameeyo iskuul islaami ah Western Cape khaasatan Bellville iyo agaarkeeda iyo magaalada Johannesburg labadaas meelood kaliya in la sameeyo oo la dhiso waqti bay qaadanaysaa laakiin maanta waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadiis ah dadweynaha Soomaaliyeed inay garteen xilkii ayaga saarnaa oo ahaa siday u dacmin lahaayeen goobaha cibaadada iyo waxyaabaha aanu annagu u baahannahay in naftanada aan ku ilaalino meeshan cid walba waa timid waxa ay u timidna waxa weeye qutulyoon bay raadinaysay nabadgelyo raadinaysay wanaag kale raadinaysay caruur baa qaar la soo baxsadeen qaarna ayagoo keligooda yimaadeen intan iga dambeysay iyo inta la midka ahba waa dadka aanu la soo baxsanay inay nolol helaan kamid baanu nahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddii aanu garannay inaanu u istaagno barnaamijka noocaasa
ilaahayna na waafajiyey rabbina subxaanahu wa tacaala noo fududeeyey bulshaweynta soomaaliyeedna waajibaadkoodii garatay hadda waxaana saaran waa midii ugu darayd waay shalay haddii aysan carruur noo joogin maanta carruur baa joogta wadaadka wuxuu ka sheekeeyey iyo waxyaabo kale oo ka daranba waa jiraan laakiin waxaa weeye sideedaba mas'ale in muhiim ay noqoto qofku inuu ku baraarugo weeye golahan dhabaqa leh oo dhibaatadu ka jirto adaa soo doontay taa hadday maskaxdaadu ka baxdo waa khatar wey haddaad iska dhaadhiciso waa lagu keenay waxba kama jiraan ninkan gaalka ah dadka dabka caabuda maxaa la dhahaa qoryaha caabuda ee asaga is caabudo adaa soo doonto u yimid sidee baad oolu noolaanaysaa su-aasha inaa isweydiisa waay maxay tahay waajibaadka ku saaran oo ay tahay inaad beddesho wey adiga haddii taa aad garan weydo oo mar walba ay noqoto inaad meel kale ula kacdo wixii waa mas'ale aad iyo aad u dhib badan waaye marka insha allahu tacaala inaad ku dadaashaan ka gobol ahaan qaabka ay maaragtay muxuu ahaa iskuul loo samayn lahaa maraakiista insha allahu sanadkaana noogu dambaysa oo hal markas oo ku yaala Rustenburg baa ololihiisa lagu jiraa wixii sanadkan ka dambeeyay waxaa ololihiisa la geli doonaa sidii dhul iskuula loo heli lahaa xataa haddaan dhulka hadda la gadanin in goob la sii kireeyo macallimiintii la tijaabiyo hadda Soomaali ahaan haddaanu nahay weli ma lihin awoodda ah inaan helno macallimiin waxbarta iskuullada hadduu noqon lahaa ilaa dugsi dhexe waa laga yaabaa in la helo laakiin dugsi sare ma heli karno waa in laga keenaa dadkan aanu la degannahay laga keeno waqti bayna qaadanaysaa waxaa la rabaa marka in qof walba uu ku fakero siduu ooga qayb qaadan lahaa waajib ku saarana weeye wax golaha albayaan ee dacwada keligeed ma aha waxaa aad ugu faraxsanahay safaaradda Soomaaliyeed inay timid waddanka uguna horeysay sanad ka hor inay timid ayaduna qaybteeda inay ka qaadato waa ka rajaynaynaa qunsulkana waa fadhiyaa insha allahu tacaala waxaan carruurtan hore u keenay waa laba arrimood dadka Soomaaliyeed ayagoo ah dad fiican rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alcaynu xaq waan ku celinayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ishu waa xaq wey waalidka laftigiisaba ilmaha yarkaa ishu ka raacaysaa waana aragnaa arrinta noocaas aad bayna u dhib badan tahay asagoo waalidku uu jecel yahay ilmihiisii farxaddii ama naxdinha kaga timaadee ayaa ilmaha yarkaa fiirada uu fiiriyey bay ka raacaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu jideeyey sidan soo socoto barnaamijka noocaan oo kale markay timaado wanaagga noocaan oo kale qofku markuu arko ma sha Allah tabaaraka Allah qof walba meeshan fadhiya waxaa la rabaa inuu yiraahdo ma sha Allah tabaaraka Allah hana la maqashiyo ma sha Allah ciyaalkan yaryarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sugo Allah ha sugo wixii xumaan ah Allah halka ilaaliyo ma dhameynay waxaan rabaa sheekh Umal baa meesha fadhiyo waxaan ka yaabaa hadda hadhowtiin u dhaho wadaadkan abtiga ku ah muxuu kaaga dhameynaa wixii marka asaga u daynaya laakiin muhiimadeedu waxa weeye carruurtan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xifdiyo xumaan xiqdi iyo xaasidnimo aamin dha hadda sheekh Ali Wajiis tafadal maantana waxaan ku faraxno ayaan kala kulannay markaskan weyn ee islaamiga ah ee Cape Town ku yaala masjid sunna waxaan marka hore u mahad celinaynaa bacda xamdillaahi tacaala walaalihii ka soo shaqeeyey barnaamijkan hadday yihiin macallimiinta dugsiga iyo hadday yihiin mas-uuliyiinta masjidka iyo hadday yihiin waalidiinta iyo inta kaleba waxaan rabaa keliya kelimadda tawjiihiga waxaa soo jeedi doona fadiilatulcallaama sheekh maxamed cabdi umal laakiin waxaan rabaa inaan soo jeediyo laba qodob oo aad u muhiima marka ugu horeysa waxaan ugu bishaareynayaa reer Cape Town ama reer dadka masjidka iyo ardadan ilaahay xifdiya aan maanta dhageysanayno xufaada ah inaan sheekh maxamed hadda aan isu sheegayno runtii oo min baab alqibda ah annagoo ku faraxsan guulahan meeshan ka dhacay in Soomaaliya iyo geeska Afrika aniga Muqdisho ka imid sheekh Nairobi ka yimid marka xifdiga quraanka muddadaas kooban iyo sidaas wanaagsan inaanan Soomaaliyana ka jirin Kenya ka jiraan isku raacsanna maxaa yeelay anigu waxaan aad uga warqabaa Hargeysana ciyaalkayga degan Muqdishona waa degan yihiin ilma waxay ugu barta labadaba ilma da'daas iyo sidaas u yar yar oo quraan ku xifdiyay laga heli maayo la Muqdisho wala Hargeysa Nairobi aan laga helayna sheekha wax iga taabta qaarkeed marka horta waxaad ku bishaaraysataan meesha aad joogtiin ayadoo waliba waddan aan muslim ahayn oo yahay waddanka guud ahaan
juhdiga aad bixiseen oo ilmihiinna qur-aanka idinkugu xifdiyeen ilaahayna uga xamdiya macallimiinta juhdigaas bixisana u duceeya oo si gaar ugu duceeya talada labaad taas waa midda hore midda labaad waxa waaye qofka waalidka ah ee ilmaha dhalay ama kuwa qur-aanka xifdiya ha noqdaan ama kuwa hadda dhigta ha noqdaan 300 oo arday gaara macallinku noo sheegay waxaad ogaatiin waxa ugu weyn oo ilaahay idin abuuray oo idinku waajiba ood gudanaysiin waa qur-aankaas ilmihiin aad baraysiin qur-aanka barashadiisuna cibaado kaliya ma ahane ilmaha mustaqbalkooda xataa soo ku jira wadaad la dhihi jiray sheekh axmed wacdiyow sheekh axmed gabiyoon waa la dhihi jiraa wuxuu yidhi yaa la yidhi gabay yaroo gabayga hore waxaa la yidhaha yani maaragtay masafa la dhihi jiraa la yidhi masafa waa gabay hore waay hadda waa kasii baxayaa qadka kuwo kale cusubaa bedela wuxuu yidhi adduunyo minay arwaax ba leedahay adduunyo minay arwaax ba leedahay macnaha adduunya wax lagu farxaba hadday yaaliin adduunya wax lagu farxaba hadday yaaliin adduunya minay arwaax ba leedahay ou yidhi oo ka bilaaba waa laydiin fasiraa dadka aan aqaanin masafada adduunya minay arwaax ba leedahay nin inankiis alif loo xariiqe albaqre aayad ka qaatayaa qaba ou yidhi adduunya minay arwaax ba leedahay adduunya wax lagu farxaba hadday leedahay oo farxadu taallo wey nin inankiis alif loo xariiqe qof cunugow dhalay qur-aanka alif looga bilaabay ee albaqre aayad ka qaatayaa qaba uu yidhi ee albaqre xifdiye qur-aanka xifdiyey qofkii qur-aanka cunugiisa inta loo bilaabo uu dhammeeyey xifdiya farx adduunya qaatay buu yidhi haddayba leedahay addunya farx horta maanta farxadda adduunyada waxaa qaatay waalidka cali gaafo iyo sheekh ubax ay ka mid yihiin oo fadhiya iyo saaxiibkay gumbe iyo ustaadka iyo dhammaan waalidiinta fadhiya oo ilmahooda maanta iyagoo xufaada horteena la soo joojiyey farxad adduunya hadday qiimo leedahay waaba leedahay horta akhyaartaasaa qabta saasuu ka wadaa xaaji sheekh axmed wacdiyow nin kaloo shirbana wuxuu yidhi sheekh maxamed wuxuu leeyahay shiribkana ha ilaabin intaan ka keenaa shirib markasta meelmo igu jiraa mawduuc kastaba in laga shirbay la rabaa odayaa wuxuu yidhi hadda ka hor 3 walxaato ba ku taal uu yidhi 3 walxaato ba ku taal ku yidhi 3 kaleeto wow bukaan uu yidhi waa rabaan waaye wow bukaan macnaha waa raadinayaan waaye wuxuu ka bilaabay ninkaas caami una ahay ugu wade wax uu ka yaqaan qur-aan ma jiraan aniga adeerkay u ahay laga turjumi maayo guulan xasan gacni yaa la yidhaha weligiis diin looma dhigin wuxuu yidhi kutaab bartay birabbi naas barayahuudna wow bugyaa uu yidhi kutaab bartay birabbi naas cunugu haddii birabbi naas looga bilaabo barayahuudna wow bugyaa uu yidhi suuratu bara iyo suuratu huud meeshaas u socdaa waay ilaa uu ka gaaranaan ansan maayo waa inuu gaaraa waay marka kutaab barta birabbi naas barayahuudna wow bugyaa waa hadda meeshii akhyaarta wuxuu yidhi gabdhuhu raalli ha ahaadaano middaan labaad gabdhahu kusoo dara wuxuu kasoo jeriye ma aqaan wuxuu gabdhaha kasoo dara wuxuu yidhi bilcaan bir looga gooyay beer berka kaleana wow bugtaa uu yidhi yacni beer haddii aad leedahay ee aad inta badan islaamanka laba islaamooday soomaalidu guursadaan gabdhuhu raalli ha ahaadaano gabdhaha qaar aan jeclayn dhagood xataa inay ku dhacaan marka wuxuu yidhi beerta haddii aad kala goyso uu yidhi ee aad middaana dhinac siistana dhinac siiso haddaad tiraa qaybtaadi waa tan qaybtan uma jeedee tan lay sii dayaysaa qaybtan kale inay ku darsatay rabtaa labadaba inay wada qaadato ma la isugu dar maxaa loo kala reebaa waaba istahishaa marka wuxuu yidhi bilcaan bir looga gooyo beer bir kalena u bugtaa uu yidhi qaybta kalena waa rabtaa midda saddexaad ku dari maayo waa ka daran tahay waxaas oo dhan calaa kulli xaal marka waxaa dhacday waxaan rabnaa waxaan uga baxayaa marka waxaa waaye waxaa la yidhi hal libaax arkaysa ma gudlataa la yidhi sheekh maxamed cabdi umaloo fadhiya war laguma dhaahi karo laguma dheeraa karo waxaan uga baxayaa marka ikhwatii fillah waxaan hadda ka hor jordan ayaan 2009 ayaan jaamacadaha ugu qiimaha badan le ka mid ahaan ustaadka hadaata soo qaaday saacadta safiir jaamacadii waaweynaayo 10ka ayo yurub ugu waaweynaayo aniguna midda aan gadaal uga darsado mid carabta ku taal yurub kaligood waxbarashada ma hayaan meel walbay jaamacaduhu ka jiraan inay adduunka ugu qiimo badan yihiin xisaabay usii baahanta dib in loo fiiriyo baahanta wax badanaa la soosgeliyey jaamacaddaas waxaa la yidhaha jaamacatu culuum technologiya waxay ku taallaa jordan jaamacadaha ugu qiimo badan adduunkay ku jirtaa nin brofesoroo madax ka ahay ayaan la fadhiisana maalin waxaa cajiiba ninkaas waa gaal wajihi cawaysaa la yidhaha brofesor jaamacada maraykan macallinka ahaa jir oo ahay waqti dheer laakiin waa nin caraba dabcan wuxuu noo sheegay arrin cajiib ah wuxuu yidhi niman brofesoraan waa ag fadhiyaan oo waaweyn jaamacaddu marka
qaybaha ugu waaweyn waxa waaye dibbi iyo injineeriya waaye wuxuu yidhi ardada soomaaliyeed ee soomaaliya hargeysa iyo muqdisho iyo boorama iyo aan dhehe puntland iyo ka timaada meelo kaleetaba ardada soomaaliyeed sanad kasta waxaa soo gasha ilaa 12 arday oo bangul islaami uu ka bixiyo oo ardada mumtaaziinta ah ayaa deeq u timaada waxbarasho marka hadda waxaa joogta ilaa 300 arday ka badan muddo ayaa lagu soo aruurinaya qaar badan lacagtooda ku bartaa waxaan la yaabay buu yidhi ardada soomaaliyeed arday yurub ka timaada ee malaysia ka timaada oo kuuriyada koonfur ka timaada oo filibiin ka timaada oo khaliij alcarabi oo dhan ka timaada oo egypt ka timaada oo suudaan turkiya adduunka oo dhan baa looga yimaada jaamacadda caalamiya waaye aad u sarraysa waxaa number 1 ahuu yidhi 40 arday ugu sarraysa kuliyad kastaba soomaali waayo wax cajiib ay noqotay arrintaas wuxuu yidhi waa qaado weynaa waddan burbursan oo baaba'san arday ka timaada inay konton waddan arday ka timaada ay ka qaadaan oo wax walba u diyaarsan yihiin dugsiga sare macaamil casriya u taallo oo koorsooyin la siinaayo oo macallimiin oo barbaati oo yani la siinaayo waxbarasho oo gaar ah haddana inay ka qaadaan nimanka dhul aan koronto lahayn xataa ka yimid oo mugdi ah wax walbana baaba'san yihiin waa qaado weyne uu yidhi waa baarnay buu yidhi guddiyaal loo saaray waxaa noo soo baxday buu yidhi waxa ay ku gaareen inay tahay inay qur-aanka xifdisan yihiin xufaad inay yihiin allahu akbar waa xufaad ninkan saas dhahay gaal waayo wuxuu yidhi qur-aankay xifdisnaayeena wuxuu gaarsiiyey inay leeballada ugu sarreeya ka galaan waxbarashada marka waa inaad ogaatiin ardayga qur-aanka xifdisan nin kornay lahay hadda janan waayo oo soomaaliya wuxuu ugu sheekeeyey waa 70 iyo 2 intana la qaado saraakiil ruushkana la geeyo yidhi ruushka wuxuu yidhi dhibka uu ka jira waxaa waaye akademiyaadka oo caskariga iyo madaniga intaadan gelin horta afka in lagu baro waayo ruushka ardayda qur-aanka xifdisneed uu yidhi dhammaan 6 bilood ka yaray ku barteen afkii ay biyo kale u barteen uu yidhi annaga aan xufaadda ahayna wuxuu yidhi hal sanaan joogna walaa shay waa soo taagtaagan uu yidhi saasaan u dhagawaaweyn ayuu yidhi dadka qur-aanka xifdisan wax walba ilaahay u sakharay sheekha ayaa faahfaahi doona waxaan ku gebagabaynaynaa marka hal qodob kaliyahan sheekh axmed dheere amiirul maaragtay xogeyaha guud ee albayaan oo nin juhdi badan ah runtii khayr allah siiyo oo aan ku taageerayno culammadeenna yimid oo dibadda ka yimid oo aad u faraxsan aan jecelnahay aan idinkugu soo khatimayaa waxa waaye haddii ilmaha juhdigan macallimiinta ay geliyeen oo iyagoo yaryaro weli aan qaan gaarin ama aad u yaryar ay qur-aan ka xifdiyeen haddii lagu sii daayo iskoolada gaalada ama xataa kuwa islaam sheeganayo ilaahay xaalkooda og yahay ilmahaas juhdigii la geliyay juhdi khasaaro noqonaya waxba ka soo bixi maayaan soomaalidana waxaa lagu yaqaanaa diinta waa jecel yihiin laakiin adduunyaday kasii jecel yihiin maalka ay kasii jecel yihiin looma baahno waxaa la doonayaa oo aniga aan kolley hoosta ka xariiqayaa in dadka la tira koobo dhammaan inta xaasilayda iyo intaan xaasilayda ahayn iyo dadka soomaaliyada jooga iyo cidda lala kaasho kaloo muslimaba in si degdega sanadka soo socda loo bilaabo iskuulle aad u tayo fiican oo islaamic schoolis ah oo maadooyinka cilmigaa leh oo luqadaha kaleeto lagu baranaayo oo ilmahan iyagoo dhaqankooda haysta ay ilaa hay iskuul uga soo baxaan ilaa ay jaamacada u gudbaan intaasaan aan u taageersanahay albayaanna waa istaahilaan waa dad lagu aamini karo dad fulin kara waaye ilaahay ilmaha noo hagaajiyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وحوغا haddii gows la qaaday dadku waa iska mashquulsan yihiin ilaahay baa mahad iskale tabaaraka wa tacaala towfiiqdiisa ayuu ku mahadsan yahay waxaanoo dadaala iyo midhaha ka soo baxay hadduusan towfiiqdiisu jiri lahayn waxba kama yimaadeen saas daraaddeed mahad dhammaanteed isagaa iskale allah tabaaraka wa tacaala mar labaad waxaan u mahad celinayaa ama marka labaad waxaan u mahad celinayaa walaalaha mas-uuliyiinta ka ah majlisulbayaan ama golaha albayaan oo khayrkan runtii asal u ah haddayna jiri lahayn iyadana towfiiqda rabbi iyo majliskan lagu midaysan yahay iyaduna khayraadkani ma yimaadeen iyadaasaa waxaa ka dhashay masaajidda la ysugu imaanayo dugsiyada
macallimiinta culimmada diin imaanaysa waxaasoo dhan isu imaadka iyo dadaalka albayaan bay ka dhalatay ilaahay ha barakeeyo walaalihii fikirka iska lahaa iyo kuwii ka soo shaqeeyey iyo kuwa hadda ka shaqaynaya markaa kadib baan u mahad celinaynaa macallimiinta waalidiinta iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay carruurta qur-aanka baratay natiijada ay gaadheen nebigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan dadka qur'aanka bartay iyo dadka baraya dadka qur-aanka bartay iyo macallimiinta baraya yaa ummadda ugu khayr badan mid baan kula dardaarmi lahaa macallimiinta iyo majliska iyo maamulka intaba oo ah in ilmaha haddii qur-aanka lafdigiisa la baray in macnaha lagula dadaalo in tafsiirka wax looga bilaabo oo macnaha qur-aanka inay fahmi karaan laysku dayo maxaa yeelay maqsuudka weyn ee qur-aanku waa macnaha marka la fahmo ayaa lagu camalfali karaa lafdigu waa wasiiladii macnaha lagu gaadhi lahaa saas daraaddeed baa saxaabadu 10 aayadood bay qaadan jireen nabiga ka qaadan jireen sallallahu alayhi wasallam 10ka aayadood bay akhriskooda iyo cilmiga ku jira iyo camalfalkooda ay hal mar isla qaadan jireen markay 10ka qaybaan bay 10 kala qaadan jireen sidaasay waxay leeyihiin qur-aankii bay ku barteen akhriskiisa cilmiga ku jira iyo camalfalkiisaba waxaan aad ugu celcelinayaa maraakista qur-aanka in la keeno qaab ilmaha cajami baynu nahay luqadda carabigii asal luqadeenni ma aha qur-aankiina carabi buu ku qoran yahay in laiswaafajiyo carruurtaas in qur-aanka macnihiisa la baro oo anugu aan leeyahay 100 goor baa waxay ka faa'iido badan tahay in qur-aanka lafdigiisa loo dhammeeyo waxaa ka faa'iido badan hal juz oo qur-aanka ka mida macnihiisa in la baro saas daraaddeed qodobkaas waxaan leeyahay waa ku celcelinayaa in qorshaha lagu daro insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin wakhtigu waa iska gaaban yahay hadal intaa ka fara badan oon sii dhahana wakhtigu ma saamaxayo culimada dadaalka runtii bixisay baan aad ugu mahad celinayaa waxaana doonayaa inaan muujiyo runtii man laa yashkuri innaasa laa yashkur illaah ciddii aan ilaahay dadka ku shukriyin ilaahay kuma shukrido marka shukri bacd allahi tabaaraka wa tacaala waxaa mudan culimmada soomaaliyeed ee ummaddii soomaaliyeed qurbaha meelay tagtayba kaga daba tegay oo maraakista u sameeyey oo hawiyadoodii islaamiga ahayd u ilaaliyey oo soomaalinimadii u ilaaliyey oo dhaqankoodii u ilaaliyey oo wada jirkoodii oo xodaqabsigoodii u ilaaliyey oo u istaagay booskii ay dowladdu u taagnayd iyo khadamaadkii dowladdu ay u qaban lahayd muddadaa u hayay South Africa keliya ma dhahayo bal Yurub iyo Maraykanka iyo Australia iyo meelihii Soomaalidu u qaxday oo dhan cidda u taagnayd 20kii sano ee tagtayba waa culimmada Soomaaliyeed iyo waxgaradkeeda wey waxay mudan yihiin in mar walba loo mahad celiyo waxaan dhihi lahaa anigoo jecel inaan kula kaftamo kelimada iyada ah qunsulka kula kaftamo waxaan dhihi lahaa dowrka aad arkayso sacaadat alqunsul waa dowr ay culimo abuurtay waxaan sugaynaa inaan aragno dowrkii iyo kaalintii siyaasiyiinta ee ummadda ay ku lahaayeen midhaha aad arkayso meel walbana aad ku aragtay runtii waxa weeyaan siyaasi intuu ku leeyahay aad bay u yartay gadaal dambe waxaad ka noqon doontaan ma aqaano laakiin 20kii tagay iyo 30kii sanee tagay waddankunbaad duminayseen baan anugu qabaa inaad wax hallaysaan weli wax maydaan hagaajinin marka waxaan dhihi lahaa midhihiinna iyo khayrkiinna ha la arko insha allahu tacaala iyo waxaad dhisteen iyo waxaad qabateen khayrkan annagu garab baan idinku nahay insha allahu tacaala
intaana waxaan dhihi lahaa qunsulka iyo ragga siyaasiyiinta ah shacabkii iyo aqoon-yahankiisiina waa inaga dhexeeya dalkiina waa inaga dhexeeya dadkiina waa naga dhexeeya mas-uuliyad baa idin saaran annagana mas-uuliyad baana saaran tiinna ka soo baxa insha allah taannada waa ka soo baxaynaa biidn illahi tabaaraka wa tacala jasaakum allahu khayran